Salebaan Axmed Ciise xagla toosiyay wasiirka hore caafimaadka Soomaaliland ayaa ugu horeynba waxa uu shacabka Soomaaliland u diray dhambaal hambaliya munaasabadda Ciidul Fidri awgeed. Hadda waxa garabkayga midig taagan wasiirka hore caafimaadka Soomaaliland Dr. Salebaan Axmed Ciise xagla toosiyay oo si kiisa ugu kulmay Hotel Ambassador oo u dhow hoyga u degay. Dr. Salebaan xagla toosiyay Ciid Mubaarak kullu caam wa antum bil khair. Ciid wanaagsan Luqmaan aad baan ku salaamayaa. Bal ciid iyo munaasabadda iyo hambaliyada dadka. Ruuxantii waxa aad baan ugu faraxsanahay ciidan. Ilaahay intii soonta ka aqbalo waa ciid wanaagsan waxaan jeclahay halkan inaan uga diro magaranaysa farxadda ciida guud ahaan ummadda muslimiinta ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto shacabka iyo xukuumadda Soomaaliland ciid wanaagsan baan leeyahay Ilaahay ciideeda ha inagu gaarsiiyo nabad iyo horumar iyo barwaaqo ilaahayna haynaga aqbalo soonkii ilaahayna dhammaanba ummadda shacabka reer Soomaaliland siiyo barakadii iyo khayrkii iyo wanaaggii bisha Ramadaan mar labaad waxaan aad iyo aad anoo faraxsan u diraya hambaliyada ciida shacabka reer Soomaaliland iyo xukuumadda waxaan kaloo halkan uga dirayaa hambaliyada ciida bulsha TV shaqaalaheedoo dhan aad baan idin salaamayaa geesta kale Dr. Salebaan Axmed Ciise xagla toosiyay wareysigan gaarka uu telefishinka bulsho ku siinayay Hotel Ambassador ee magaalada Hargeysa ayaan wax ka weydiiyay inuu iibiyay guryo uu ku leeyahay magaalada Hargeysa isla markaasna uu socdo magaalada Garowe wararkaasi oo muddooyinka ugu dambeeyay suuqa ku jiray warba suuqa la soo galay Garowe tagaya si kooban maxaa halka hadalka inkastoo maanta ciid tahay oo ay mudan tahay in lagu ekaado hambaliyada ciida haddana warkaas waa fake news waxna kama jiraan waa been la buunbuuniyay mar aan imika hayno si ballaaran baan uga hadli doonaa Luqmaan Maxamed Farax Bulsho TV Ambassador